السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waa anigiyo mar kale in soo laabtay maanta maxaa idin sida wax in ka farxinaya aad u sugeyseen oo badankiina aad ugu baahan yahay gabdho badan ay dhaheen soo gali wax nabraha bi'iya wax u roon maanta waxaa idin sida kareemadan iyo saabuuntan intaba isugu jira waa daawo nabraha iyo wax dhan ka bi'inayso oo laba qayb waa in kala sharaxi doonaa marka waxaan ka bilaabayaa halkan waxaan ku haystaa kan saabuun waa aragtaan acne soap waa tan nabraha kaa bi'ine saabuuntan marka dheehaagay kuu soo celinay yacni madmadowga nabrihi meelihii ay ku yaaliin intaba waxa dhan waa marine dheehaagii hore idibkaagii saxda ahaa kuu soo celinay dhaldhalaalkaagii ma aha inay caddaan ku siinayso tan laakiin midabkaagii saxda ahaa quruxdaadii soo celinay ay nabraha wejiga dadka ka hadleeyaan ka gubaan madmadowga markuu kugu bato wejiga inuu kaa qayirmo waxaasoo dhan ay kaa nadiifinee alaabtan waa la hubaa alaab ani hadda aan gado aniga aan xayeysiisanayna ma aha waa waxaan suuqa kasoo gatay oo la hubo kawaakaasaa si fiican u fiirsada saabuuntan waxaa sameynaya marka fast saabuunta halkan waa idin dhameynaa ayaga dhan marka hore kadib in sheega si loo isticmaalo halkanna waa creamkii lagu isticmaali lahaa saabuunta markii la marsado kadib waaye soo kan iyo kan waa isku darsanaya marka labadan saabuunta markaa ku dhaqad kadib labadan waa isku darayaa waa marsanaya wejiga labadaba nabrahay bi'inayaan waa aragtaan si fiican u aqriya qofka waxaa muhiim ah aqriska inuu yaqaano hadduu aqooninna dad wax aqrin yaqaana inuu u geysto gabar tiktok waxaan ku arkaya dhahday gabaraa isiisa xayeysiinaysa wax aan soo iibsaday markaasaan cabay waan xanuunsaday dhahday muddo week mi ama waxbaa xanuunsaday dhahday cunto xataa waa cuni waayay dhahday aniga aadan u xanuunsaday dhakhtaraa tagay dhakhtarka wuu ila yaabay dhahday wuxuu dhahday daawadan madaxaaba loogu talagalay timaha lagu dhaqdaa shaambada lagu darsadaa dadna waxay ugu sheekeeyeen maxay ahayd waa la cabaa inaa lillaah waa yaaba an arrintaas markaa maqlay gabdho wax akhriska ha lagu dadaalo waxa la barto qofka akhris aan aqoonin ha barto kii kaloo aan aqoonin oo dhib haystana daawada uu iska soo gato meelaha dadka waxa ku xayeysiisanaan uu soo gato hadduu aqrin aqoonin qof wax aqrin yaqaan ha u geeyo bal ha waxyaabaha loo isticmaalo wax walba directionska ku yaalaan ha ogaada bal wax loo isticmaalo wax hadda iska soo gato iska isticmaal ma fiicna dhakhtar hadduu kusoo qoro xataa wax in aqrisada fiican wax walba effect ay qabaan hadda kan marka waa aragtaan nabraha waaye acne and pimples waa kanna sidoo kale for skin whitening kan lagu sheegay ma whitening oo aad ku cadeynayo waa midabkaagii kuu soo celinaya ee quruxdaadii aa u dhalatay oo nabraha ee wejiga kaa haleeyay iyo madmadowga ay ku geliyeen waxaasuu kaa nadiifinayaa marka waa aragtaan waxaa waa skin whitening anti acne nabruhu baabi'ina max calaamadaha wejigaaga yaala age spots waxa daqowga wejiga oo yeesha eye circles indhaha oo madmadowga waxa oo indhaha agagaarahooda iyo freckles and sun damage iyo qoraxda iyo waxay ku keenta qoraxda dadka qaar wejiga ay ka gubtaa madow iyo haaro iyo waxba u yeeshaa waxaasoo dhan ay daawo u tahay labadan marka waa isku dareysaa marka sida loo isticmaalayo intaan horta idiin dhameeyo fast kana ku dhaqanaysaa wejiga midda kaloo inka ilooba waxa waaye waxyaabaha qaar dadka nabraha u keena allergy oo kale dadka qaba allergiga nabraha way keenaan waxyaabaha dhan aan allergiga ku tahay waa inaad dhakhtar u tagtaa ama hadda adiga is og tahay waxyaabaha qaar markaa cuntid oo kale nabra kaa soo bixinayan iska daa waxyaabaha oo keenana allergiga oo dadka ku kiciya nabraha ku keena way badan yihiin sida ukunta digirta kalluunka chickenka waxaasoo dhan nabre dadka ku keenaan qaar basbaaska xataa way ku qabaan dadka allergy qaar digirta way ku jirtaa waxa ay borotiin oo dhan dadka nabra inay ku keenaan waxaasoo dhan kaa joojisid aragtida wixii inay isbedelaynin ay kugu socdaan weli nabrihii markaas isku tijaabi alaabtan aaday ku caawinee ma aha nabraha kaligood in iska soo baxeen allergy kuu keeni kara ama waxyaabo qaar aan marsataa kuu keeni kara
وكاسة أصحابتي كفائدة marka waxaa sameynaysaa saabuuntana soo qaadane wajiga waa qoyne wajiga markaa qoysid marmarine ilaa 1 daqiiqo camal scrub ku sameynaya wajiga ku scrubeyne meelaha nabraha la ilaa meelaha madmadowga ee nabraha ka tageen intaba waa marine 1 daqiiqo marka wajiga ku si fiican u marmarisid waa ka dhaqdid kadib kan iyo kana isku darsane labadan isku darsane kadib waa marine marka waxa uu isticmaalaysaa kan 5 waqti salaad kasta markaa tukatid oo weysaysatay kadib waa saabuunta ku dhaqanay yani weysada markaa weysaysanaysaa ku dhaqanaysaa 5 waqti waa inaad ku dhaqataa kadib kareemka isticmaalkiisa ku soo haray subaxii markaa tukatid kadib kareemkana marsanay markaa saabuunta ku dhaqatid iyo kan labadana ka wada amarsanay waxa iska dhaqaysaa barqadi oo kaleeto waa iska joogaysaa duhurkii saabuunta sidoo kale salaada kadib waa salaada weysada dhaqanay wajiga waxa marsanaysaa salaada kadib kana marsanay kareemka waa joogaysaa casirkii waxa marsanaysid haddana habeenkii waa marsanay waana ku seexan kartaa labadan ka saabuunta ku dhaqata kadib sheekadan marka meeshaas aan kugu soo xiray kana in ka daba geenaya marka kan waa aragtaan inta waxaa ku jirta kareem yar ku jira inta oo asagana boomaato ah wax yar waa aragtaan yaris ah iyo saabuuntan waa isla tii oo si kaleeta ah tii green iyo waxay ahayd tan waxaa pinki ama halkan dahabi gold waaye waa ka gold soap ku qoran tan waxaa marka qofkii raba inuu cadaado nabrahana ka ba'aan ma fahanteen qofkii raba inay nabrahana ka dhamaadaan cadaadana laakiin marka hore waa inaad iska fiirisaa waxyaabaha nabraha ku keena cuntooyinka qaar cuntooyinka inta keenta allergiga kicisa dhan inta idin sheegay waxaas oo dhan waa inaad iska joojisaa kadib markay ka bi'i waayaan waa ka alaabta isticmaal whitening ku siinaya kan nabrahan uu ka dhameynaya waaka saabuuntana sidii oo kale 5 waqti ku weysaysanaysaa ku dhaqanaya wajiga si fiican ugu scrubeyne kadib kana marsanay kan marka xoogaa uu yara kulul yahay kan kuleel waaye ina oo adkeysatid waa marka meelaha nabraha leh ilaa meelaha madmadowga oo nabraha ay ku marine wajiga dhanaa marine kuleelkiisana ina oo adkeysatid waa ina iska boodid ma aha sideedana waa ina sida saxda ah ku dhameysataa yani marka intaan dhameysatid ay waxa ka tari waayaan ama ii sheeg wayba ka tarayaan kuwan wax because nabriya oo loogu talagalay cuntooyinkaasna aad iska deysid ka week amal ay ku soconaysa alaabtan ka weegaas marsatid wax weyn iska dareemee waa kaas asxaabteedii intaas in la share gareynaaye gabdha ay dhaheen soo gali nabraha waxa biiya alaab ku cadeynayso nabraha ka biinaysa waatan intaan kuwaana waa wax nabraha ka biinaaye qofka cadaan badan aan rabin oo laga tiisi intaan ahayn aan rabin tiisi hore qurux aad u qurux badan u noqonaya inta aad u isticmaal intaana nabriina waa ka biinaysa waana cadaanaysa qurux ay noqonay waa kaas asxaabteed intaas in kaga faa'iideenaaye khayr idin dhaaf share gareeya subscribe saara like ta adinka leewaaye ana halkana in kugu diyaar ahay in soo galgalinaya wax soo dalbada waxa rabtaan khayr idin dhaafay aad in kugu maad celinaya asxaabteeda wassalaamu calaykum waraxmatullaah bye